qaar ka mid ah dadka ayaa cabsi ka qaba nolol maalmeedka iyo mas'uuliyadda nolosha marka loo eego cabsida dhimashada. My name is Gerardo Jacinto, and I live in the graveyard. Ma halkan ayaad seexataa maalin kasta? Ma halkan ayaad seexataa habeen kasta? waxaan seexdaa dhammaan xabaalaha. Dadka ku nool halkan waxay leeyihiin khayraad, laakiin waxay ku nool yihiin xabaalaha dhexdiisa. Meel la arko inay tahay tan ugu khatartan adduunka. Xabaalaha waqooyi halkaas ay ku nool yihiin ku dhawaad qoysas aad u tiro badan. dadka qaar ma jecla in la sawiro. نطلع من المنطقة هاي. Ladies and gentlemen, we have just landed at Imekiri International Airport. hadda waxaan kuu qaadi doonaa xabaalaha waqooyi. Ma dad baa halkaa ku nool? waan ogahay in dadka halkaa ku nool yihiin. Living there, yeah, correct. waxayna halkaas ka shaqeeyaan nadaafadda xabaalaha, waxayna lacag ku ururiyaan mulkiilayaasha xabaalaha. We collect money from the grave owners. Where are you going? Yeah, they get دخلنا والتقينا بأول عائلة. شايفين اخوان. waxaan fiirinaynaa baloogan ugu horeeya. dadka halkan ku nool xabaalaha dadka halkan ku nool way adkaysi badan yihiin. waxay ku nool yihiin xabaalaha dhexdiisa waana gurigooda. mid ka mid ah guryahaas dadku halkan ayay ku nool yihiin. وفي القبور نفسها. هاي بيتهم، شايفين هذا واحد من البيوت الناس عايشين. هذول ايش بيشتغلوا؟ xabaalaha dhexdiisa maalin kasta way shaqeeyaan waxayna helaan kaliya $1 ama $2 si ay u daryeelaan xabaalaha. عشان ندخل القبور هاي. dadku halkan miyay ku nool yihiin? dawladdu waxba uma awoodo si ay dibadishan ugu samayso. إشي عشانهم. Like qof kastaana way u furan tahay inuu meeshan soo galo oo uu ku noolaado. waanaad ku noolaan kartaa. taasi waa sababta aysan u lahayn qolal. meeshan waa bilaash in la seexdo. qof kasta oo masaakiinta magaalada ka mid ah wuu imaan karaa uuna seexan karaa. kani ma gurigaagiiba? haa, ma halkan ayaad ku nooshahay? haa, xabaasha dhexdeeda. ma xagganaad seexataa? kani ma walaalkaaba? Yes. he sleep here and this inside here. طلع القبر، هذا القبر نايم عليه كان. Dead people inside? Yes. How long you live here now? inta jir ayaa tahay adigu? 23 years. How old are you? 23. You were born here. laakiin ma jirtaa doorasho? maya doorasho ma jirto. shaqo kalena waan ka heli waayey dibadda. mararka qaar shaqo ka baxsan waan heli karaa, laakiin ma badna. ma ka baqdaa reeakhraadka? maya kama boqo. ma aragtay reeakhraad weli? The dead people here around? maya weligeyd ma arag. waxaa hooy u noqday xabaalaha kana caawiya dadka inay halkan joogaan. halkan ayaa noqotay guryahooda xataa haddii ay
طلع كيف بيلعبوا يا اخوان بين القبور، لسه بيعيشوا حلم الطفولة. dhammaantood waxay wada nool yihiin qoys ahaan iyagoo ku nool xabaalaha dhexdeeda. waxaan leeyahay This is the oldest. kani waa kan ugu weyn kan grandson. Sababtoo ah hooyaday iyo aabahay ayaa halkan ka shaqeeya. Ma haysano doorasho inaan meel kala tagno. Sidoo kale ma haysano lacag aan ku koraysano guryo. Marka halkan ayaan galnaa sababtoo waa bilaash. Haa, halkan ayaan u joognaa shaqo. Haa, waxaan halkan u joognaa shaqada hooyaday, nadaafadda xabaalaha qaar ka mid ah milkiilayaasha. marka adigu waxaad daryeeshaa xabaasha oo isla markaad ku saaxataa sababtaa ma haysatid guri ma awoodi kartid inaad daryeesho. qol kasta waa la heli karaa, xabaal kasta waxay leedahay qiimo u gaar ah. si xabaasha loo nadiifiyo milkiilaha ayaa lacag siinaya, markaa milkiilaha xabaasha ayaa isticmaala inay nadiifiyaan kaa xabaal kasta haa bishii ama sanadkii, mararka qaar sanadkii. marka dadku waxay bilaabaan inay halkan yimaadaan si ay u soo booqdaan dadka dhintay ka hor inta aysaan imaan. waa in la nadiifiyaa. waxaa kaloo jirta xilli loogu talagalay xabaalaha. So this is for all the family. markaa tani waa qoys hore, waxaan ahaa keligay, aabbaha iyo walaalkay ayaan u xiisay. sanad kasta ma halkan ayaad u timaadaa si aad u booqato? haa, sanad kasta ayaan booqdaa, markaa sidaa ayaan u daryeelaa. imiyaa kelinimo sababtoo ah qaar ka mid a dadka halkan waxay leeyihiin ma jirto guri dibadda ah. الحكومة بتعرف عنهم بس ما بيقدروا يعني يعملوا أي شيء، يعني حاولوا إنهم يطلعوهم بس ما بنوا لهم بيوت خارجية يعني، فصاروا عايشين هون وحياتهم هون وانولدوا هون. غير هذا قبر، هذا قبر وهي مخدة. There is a dead body here. الجثث تحتينه. That's very tough. haddii aad haysato lacag maxaad ku samayn lahayd? waxaan furan lahaa suuq, dukaan iyo waxyaalahaasaan furan lahaa. She opens small shop. waxaan kuu qaadi doonaa dalxiis, kadibna mar kale ayaan halkan ku soo noqon doonaa. ka fakir, ma jiro telefoon. مرة. You don't have phone? No. waa inaad aadaa dukaanka internetka. It's okay. We can surprise you. اوكي هسه زي ما انتم شايفين sidaad u aragtaan hadda waxaan dul joognaa wadar xabaalo iyo guryo ah. tan waa meel weyn walaalayaal. فيها آلاف waxaa halkan ku nool kumanaan dad ah. واحد ولا اثنين. ma aha hal ama labo, laakiin kumanaan qoys koox ka mid ah xabaalaha. waxaa ku nool dad xabaalaha hoostooda. ma arki kartaa idinka xaggeeya? waxaa jira dad doonaya inay qodaan xabaalaha. meelahaasi waxaa ka buuxa dad cararay. ma jiro booliis ama cid kale. waxaad u arki doontaa inay xooga cabsi badan tahay. ma geli kartid meesha habeenkii. What area? You surprised also? Yeah, first time coming here. First time. I'm from here, but it's my first time to be here. qaar ka mid ah dadka halkan ma doonayaan inaan duubno. marka waxaan ka tagnay meesha. waxaa laga yaabaa inuusan fiicnayn in wax walbaaba halkan la duubo sax. kanima gurigaagiiba? haa, gurigayga. And inside the grave. waxaan jiraa 20 sano. aniga sidoo kale waxaan noqonayaa 20. ma ku raaxaysataa noloshaada? Yes po. marka halkan ayaad ku nooshahay. Yes po. imse sanno ayaad halkan ku nooshahay? You live here. More than waxaan halkan ku noolaatan iyo 2003. taasi waa in ka badan 15 sanno. 15. waxaad halkan u guurtay? Because my sababta aabahay. aabbahaaga halkan ayuu ka shaqeeyaa? You live here with your father. haa. But how do you feel this area? happy naman po. Happy? Yes po. Bored. It's not always happy. What's your name? My name is Georgette Backing. Just child. You have a kid? So she Yes stopped. po. Isa po. How old? How old? 2 years old. 2 years. Yeah, you're gonna be living here for. tani waa muuqaal ilma ah oo halkan ku noolaa muddo 2 sano ah. ma sheegi karto inay joogtay, laakiin walaasheed oo halkan ka shaqaysa ayaa qorsheynaysa inay ka saarta halkan. waxay dhowaan tegi doontaa sababta oo ah walaasheed ayaa ka saari doontaa. It's my mother.
Your mother is smart. Thank you po. You're so generous. Thank you po, thank you. Thank you very much. markaan waxaan go'aansanay inaan u iibino telefoon si ay noola soo xiriiri karaan waxaan rajaynayaa inay channel YouTube furtaan sida aniga oo kale waxaan u maleynayaa inay tahay hadiyad yar telefoon ma garanayo wax kale oo aan siin karno waxaan sidoo kale wada cuni doonaa qadada waxaan la kulannay qoys waana qoys aad u tiro badan Yeah, we are going to buy the mail for 10 people. Now we are already. Take the box down. This is the phone? That's the phone. No? انتوا فاهمين؟ وداد aad u faqiir ah balse qalbiga ka deeqsiya xataa xaaladooda adag انتوا اللي اعطيتوه التليفون ma fahantay waxaan ula jeedaa waxyaabahan hadda qabannay ma ka fikiraysaa idinka ayaa siiyey telefoonka idinka ayaa ka qayb qaatay ma aha annaga oo keliya idinka ayaa go'aansaday inaan siino qadadan iyo waxyaalahan kale hadiyadahaaba So we have a gift for you and your daughter because she want to watch YouTube so she can watch it on the phone with internet. Thank you po. You like it? Yes. Ano, masaya ka? Happy ka? Happy? Happy? Very much. That's her wish. Her wish? Yeah. Like a wish come true for her. فاهمين حلمها كان تحمل تلفون حلمها يا إلهي My name is Marilyn de Guzman. Ako po nakatira dito na 61 anyos. What is your job? Ano ba trabaho niyo po? nangangalakal wuxuu ururiyaa qashinka waxaan weydiiyey maxaa tan u dooratay wuxuu yidhi qoyskaygu halkan ayuu ku soo barbaaray anigu halkan ayaan ku soo barbaaray sidoo kale halkan ayaan ku weynaanay taasi waa sababtaas uusan u rabin inuu ka tago meeshan laakiin haddii uu helo fursad uu kaga tago wuxuu leeyahay inuu tegi doono sababtaa nolosha halkan way adag tahay wuxuu ku dhagan yahay sidaas haa uu ku dhagan yahay هو من الحرب العالمية الثانية يا اخوان 1958 She said when you speak English, her nose will bleed and her ears cannot hear anything. Hindi po. Ay, reward po namin. Bye.